galkaya mudanaan galmuduge mursal cabdi maxamuud waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee wax soo bartay ee ku nool deegaanada galmudug wuxuu marti igu yahay barnaamijka golojoog ee toddobaadkan ugu horeyn mursal waxaan weydiiyey waa maxay doorka siyaasadda ay ku leeyihiin qaxootiga Soomaaliyeed marka ay dalka dib ugu soo laabtaan qaxootiga Soomaaliyeed wadanka dib ugu soo laabtay anigu sida ila tahay door shariif ah ay wadanka ku leeyihiin tusaale hadii aan soo qaadano oo waxa noogu filan maanta madaxda wadankanaga kuwooda ugu wanaagsan ama kuwooda ugu sareeya waa qaxooti dabcan wadamo kale qaxooti ku ahay laakiin markay wadanka dib ugu soo laabteen dhanka hogaaminta ama leadership wax badan ka bidaamiyay oo dawladnimada khibradii ay wadamadaas ku soo qaateen wadanka dib ugu soo laabtay kuwa waxa jira sidoo kale dhanka dhaqaalaha wadamo kale ilbaxnimadii iyo fursadihii wadamada shisheeye ay ku soo arkeen wadankanaga dib uga faa'iideeyay waa maxay marka faa'iidada ay dalka u leeyihiin ama deegaanka galmudug ah hadeertan aan joogno dadkaas soo laabtay ay wax uga faa'iidi karaan faa'iidooyin markaan dhahno faa'iidada ay u leeyihiin guud ahaan wadanka gaar ahaan galmudug faa'iidooyin badan ay leeyihiin faa'iidooyinkaas dhan u kala qaadno dhinaca dhaqaalaha faa'iidooyin ay u leeyihiin dhinaca siyaasadda kale faa'iidooyin u leeyihiin laakiin labada ugu mudan ee faa'iido ay leeyihiin waa dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dhaqaalaha haddii aan ka hormaro dhinaca dhaqaalaha fursado badan oo waxaa jira dadka wadanka ku sugan aysan ka arkin wadankooda laakiin marka ay qaxootigu wadamo kala tagaan ay dabcan wadamadaas horumaray ku arkaan fursadahaas haddii wadanka dib ay ugu soo laabtaan ay ku talamaan ama ku dadaalaan sida ay wadanka uga hirgeli lahaayeen taasi waa dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda markaan fiirino waxaa jira wadamo dadka dabcan inta qaxooti wadanka ka qaxay ama si uga tagaan sabab kasta ha keentay inta ka baxaan wadamo kale taga ee qaxooti u noqda waxa ugu weyn oo wadamadaas ay ka kororsadaan waa ilbaxnimada siyaasadda tusaale ahaan wadamada ay inta badan qaxootigu ama qaxootiga magangelyo siiyahay waa wadamada dimuqraadiyadda waxa ugu yar oo aan dhihi karno way nagu soo kordhiyaan waa ilbaxnimada dimuqraadiyadda iyo sida wadankana waxana qaad dimuqraadiya ama xisbiyo ama dawladnimo dimuqraadiya ay uga hana qaadi lahayd qofku markuu inta dalkii ka baxay oo dib ugu soo laabtay yahay meeshii meel in badan oo ka maqnaa waxyaabaha u dhow siyaasadda waa soo aragnay dhaqaalaha qofkan qof dalka ka tahriibo uu ahay dhibaato badan buu ka soo maray wadamadaas dib ugu soo laabtay muxuu ka qaban karaa dalkii wadanka qofku markii hore uu joogay iyo marka uu labaad dib ugu soo laabanayo dabcan laba fikrad oo kala duwan uga soo bixi doonta waxa markii hore uu aaminsanaana waxa way noqon doonaan waxa markaan dambe uu soo laabtay soo celiyay ee uu aaminsan yahay waa fikirkii hore ka duwan waxaan aaminsanahay in iyadana uu meeshaas ka qaban karo waxyaalo dadkanaga anfacaya oo inta joogta wadanka anfacaya sida inuu ku dhiirigeliyo inay wadankooda joogaan inuu tusiyo muhiimadda wadanka uu leeyahay iyo waliba fursadaha uu ku soo arkay wadamadaas wadankeena ka banaan una baahan in dhalinyaradu ka faa'iideystaan waxaa sheegtay inay door siyaasado ay ka ciyaari karaan dalkii hadda galmudug baan joognaa qofkan wuu tahriibay wuu soo laabtay sidoo siyaasadda ugu soo biiri karaa maanta marka la fiiriyo waaqiciga siyaasiga ee Soomaalida markaan maanta si fiican u fiirino dadka ugu sareeya ama dadka heerarka sare ka gaaray siyaasadda Soomaalida waa dadka qurba joogtahay waxa noogu sokeeyay soo qaadan karnaa waa ra'iisul wasaaraha wadanka ugu sareeya wuxuu ka mid yahay qurba joogtii Soomaalida ahayd ee wadanka dib ugu soo laabtay haddana waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed marka doorka siyaasadooda waxaan dhihi karnaaba way ka sareysaa kuwa naga wadanka joogay sidee ula qabsan karaan beed ahaan dadkii deegaanka joogay qofkan waa qurba joog baa la yiri siyaasaddiiba ku soo beeraya dhaqaale wuxuu rabaa inuu ku soo kordhiyo sidee dadku faham uga qaadan karaan siyaalo badan oo dadku faham uga qaadan karaana way jiraan tusaale ahaan in wacyigelin ay sameeyaan oo iyagu ay u soo xilqaamaan dabcan xataa maanta markaan waaqiciga jira fiirno waxa jira ururo badan oo dad qurba joogay ay madax ka yihiin
dabcan oo qaarkood siyaasadda lagu falaqeeyo qaarkood cilmi baarayaal sare inta lagu kulmiyey siyaasadda lagu lafaguro qaarkood dhaqaalaha lagu lafaguro qaarkood xataa arrimaha bulshada lagu lafaguro marka dabcan in dadkii ururo u sameeyaan ay wacyigelinta halkaas ka wadaan ayagoo qurba jooga oo madax u ah faa'iidooyinkaas badan ay u leeyihiin ka adiga ahaan ma aaminsan tahay in qaxootiga dhalinyarada qaxooti ahaan inta ku baxay ku soo laabtay inay galmudug wax ka bedeli karaan dhuucay waa runtaa waa arrin meesha ku jirta dabcan inkastoo guud ahaan waddanka si guud haddana uu saameyn ugu wada yeeshay qaxootiga waddanka dib usoo laabtay haddana waa wax muhiim u leh galmudug markaan joognana dabcan kumaba sii jirto oo maantay galmudug iyadaa u baahan hanaqaad iyadaa u baahan in la yabyabo oo laisku aadiyo laisku duwo waxaan isleeyahay anigu ka masal ahaan way anfici lahayd qurba joogta ilbaxnimada leh galmudug maanta wayna u baahan tahay deman magaliyo muna bilanay mirta gurel leexadagood kalkaya mudan